بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توبركن maanta aan qaadinayna waxa weeyaan spirulina wadana darkaysan ama cunto caawiyahan waxa loo yaqaan spirulina capsule. Spirulina waxay ka mid tahay productyada ay soo saarto Chinese waliba waxay ku jirtaa qaybta immuunka ama difaaca jirka kor u qaada dawooyinka difaaca jirka kor u qaada. Spirulina caagada darkaysan waxa ku jira 100 xabo inshallah waxaan eegi doonaa marka faa'iidada ay jirka maanta u leedahay spirulina benefit to the body. faa'iidada jirka u leedahay waxa weeyaan difaaca jirka ay kor u qaadaa, waxa soo kale kor u qaadaa digestionka ama dheefshiidka qofka, waxay yareysaa daalka qofku inuu hore u daalo. tan ku noqdo waxa weeyaan digestionka marka la waxa weeyaan dheefshiidka qofka deema calooshiisa kala taagan tahay ama ay soconayso kale ama cuntada aanu dheefshiidku si fiican aanu u shiideyno kale ayaa bay u fiican tahay. qofku markuu qaato spirulina dheefshiidkiisu u fiicnaadaa. daalka badan qofka daalka aadka u badan daalka way ka yareysaa. jirka waxay u sameysaa adkaysi wax la yiraahdo ay jirka u sameysaa spirulina. waa natural detoxifier cleans the body. waa qashin saar dabiici ah oo jirka nadiifisa. waxay kordhisaa energy levelska ama tamarta qofka jirkiisa ayaa way kor u qaadaa. appetite qofka ay controlsha. waxay u fiican tahay healthy cardiovascular function muruqa wadnaha ku meegaarsan ama wadnaha kale ayay u fiican tahay spirulina. qofka wadna xanuun kale waa la siin karaa. waxay taageertaa beerka iyo kaliyaha ay taageertaa oo u fiican loo qaataa. waxay ka yareysaa dadka waxa loo yaqaan inflammation oo kale ama xanuunka iyo ololka qofku inuu jirkiisa kale yiraahdo wii ololiya jirkiisa hadana jirkiisa uu qabow yahay. waxay faa'iido u leedahay dadka allergic leh ama xasaasiyada. waxa loo isticmaalaa caafimaadka maqaarka. qofka hadduu doonayo maqaarkiisa inuu noqdo maqaar healthy ama caafimaad qaba waxa lagu qofku isticmaali karaa spirulina. waxayna faa'iido u leedahay timaha quruxdooda iyo cidiyaha xoojintooda. qofku soo kale spirulina saamka sawirkan ka arkaysaan wuxuu isticmaali karaa quruxda wajiga ama skinka. wadarkiisaan gabadhan waxay marsatay spirulina wajigeeda waa kan iyadoo marsatay iyadoo iska maydhana waa kan. spirulina marka xagga dumarka laga hadlayo ama ragba qof kasta uu marsan karaa. qofka wajigiisa kale xasaasiyada uu leeyahay, qofka finanka oo kale leh, qofka haaraha oo kale wajiga kula haaraha dadku waxay moodaan wax dibadda kaga yimid laakiin haaruhu waxa weeyaan waa nafaqo jirka ka maqan. marka qofku uu isticmaali karaa wajiga uu marsan karaa, timahana uu marsan karaa, qofku uu isticmaali karaa. dosage-ka loo qaadanaya waxa weeyaan spirulina saad arkaysaan. dosage-ka qofku uu qaadan karaa waxa weeyaan waa 3 capsules 2 times a day. maalinkii wuxuu qaadan doonaa 3 xabo subaxiya iyo 3 xabo habeenkii ayuu qaataa spirulina. qofku timahana uu marin karaa apply on skin and hair. qofku timahana uu marin karaa dadka timo kale ka daataan waxaanu marin karaa maqaarkiisana qofku uu marin karaa. uu maqaarka waxa markaan jeedo waxa weeyaan qofku wajiga kale tusaale uu marsan karaa qofku spirulina. better Tianis, better life. Thank you.